kooxda Liverpool ayaa soo gabagabeysay muddo 30 sano ah oo ay sugayeen hanashada horyaalka Premier League kadib guuldaradii 2-1 ee soo gaartay kooxda Manchester City Khamiistii. Kooxda Jurgen Klopp ayaa 4-0 ku garaacday Crystal Palace fiidnimadii Arbacada iyagoo u baahnaa kaliya 2 dhibcood 7 kulan ee harsan, laakiin iyadoo kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City ay haatan ka dambeyso 23 dhibcood oo harsan tahay 7 kulan kadib natiijadii Khamiistii ee ka dhacday Stamford Bridge. Liverpool ayaa noqotay koox la gaari karin. Guushan ayaa soo afjari doonta abaar muddo 30 sano ah iyadoo Klopp sanadka 2020 uu soo afjaray sugitaankoodii ahaa hanashada horyaalka kadib 1990 markii kooxda Kenny Dalglish ay ku guuleysatay horyaalkii hore ee kubadda cagta. Ku guuleysiga koobka xilli ciyaareedkan ayaa la micno ah Liverpool inay haatan haysato 19 koob oo horyaalka ah oo magacoodu ku qoran yahay, waxayna hal koob ka dambeysaa Manchester United oo fadhisa 20 koob oo horyaalka ah. Wax erey aan dhaho ma haysto, waa wax aan rumaysan karin, ayuu Klopp u sheegay Sky Sports wareysi kadib guushii Chelsea. Waa wax ka badan sidii aan filayay inaan ku guuleysto horyaalka, waa guul la yaab leh oo ciyaartoydaydu gaareen, waa waxa ugu fiican ee qiyaasi karo, waxayna ka badan tahay tan aan weligay ku riyoonayay. Sugitaan dheer ayaan soo afjarnay daga dhamaantiin magaalada kubadda cagta ku waala. Guardiola ayaa amaanay Liverpool kadib guuldaradii kooxdiisa. Ambalyo weyn ayaan u dirayaa Liverpool, wuxuu kaloo yiri kadib 30 sano oo aysan horyaalka qaadin xilli ciyaareedkan ciyaar walba waxay u ciyaarayeen sida ay ahayd tii ugu dambeysay. Milkiilaha Liverpool John W Henry ayaa ku amaanay kooxdiisa warbaahinta bulshada. Tani waxay ahayd xilli loogu talagalay da'da iyo aaminka naadiga kubadda cagta Liverpool. Waxay ahayd sanad cajiib ah oo la yaab leh oo aan ku soo gabagabay hanashada horyaalka Premier League. Sidoo kale tababarihii hore Liverpool Robert Benitez ayaa soo qoray hambalyo Liverpool kadib 30 sano, waa riyo rumowday, aad ayaan ugu faraxsanahay dhammaan Redska, weligaa ma socon doontid kaliga. Sidoo kale Steven Gerrard hambalyo dhammaan haweenta Liverpool FC ee ku guuleysiga horyaalka. Guusha lama filaanka ah ee ka timid koox cajiib ah oo ka mid yahay ciyaartoy sarsare oo hogaaminayo macallin heer caalami ah iyo kooxda tababarka. Sidoo kale xusad gaar ah ayay mudan yihiin taageeradii FCG. ugu dambeyntii tan ugu muhiimsan ayaa ah taageerayaasha oo sugayay 30 sanadood la dabaaldego. Taageeraha weyn Liverpool waa ninka masaaricada dheela ee Shamo, wuxuu yiri tani waa inta ay qaadatay in ay Liverpool ku guuleysato horyaalka mar kale 30 sano oo xanuun iyo cidhiidhi ah, laakiin Liverpool ayaa ku soo noqotay meeshii ugu sareysay. Si aan u dabaaldego waxaan dib u soo celinayaa timahaygii badnaa laga soo bilaabo 1990 weligaa ma socon doontid kaliga. Liverpool ayaa jebisay rikoor kasta oo nooc walba ah intii lagu jiray ololahan xusuusta mudan, waxayna sameeyeen rikoor 18 guulood xiriir laga soo bilaabo October 2019 ilaa iyo Febraayo 29 2020, waxayna ku guuleysteen kulan kasta oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan, taasoo ka dhigan rikoor 23 guul ah. Waxay sidoo kale dhigeen rikoor 44 kulan oo aan wax guul dara ah la kulmin tan iyo xilli ciyaareedkii hore. Manchester City ayaa sameysay intii karaankooda ah in dib u celinta hogaanka Liverpool xilli ciyaareedkan oo dhan, laakiin ma aysan joogsan kooxda Klopp, waxaana soo gaartay guuldaradii ugu horeysay ee Premier League kaliya bishii Febraayo iyadoo si lama filaan ah 3-0 looga badiyay kulankii Watford. Guardiola ayaa kooxdiisa 25 dhibcood ka salamartay kooxda Klopp 2 xilli ciyaareed ka hor, isla markaana 1 dhibic ka sareysay xilli ciyaareedkii hore. Klopp ayaa sheegay bartamihii isbuucan in ay ahayd wax aan la filaynin in kooxdiisa 20 dhibcood ka sareyso Manchester City, taasoo la micno ah inay kooxdiisu sameysay wax runtii aad iyo aad u cajiib ah. Laakiin natiijada ka soo baxday Stamford Bridge Khamiistii ayaa Liverpool ka saartay 30 sano ee abaarta ay ka haysatay horyaalka. Liverpool koobabka ay haysato waa 19 horyaal, 8 League Cup ama Carling Cup, 7 FA Cup, 6 Champions League ama horyaalka Yurub iyo 3 Europe League. Anigu waxaan leeyahay taageerayaasha Liverpool hambalyo, weligaa ma socon doontid kaliga.